السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا هبون داوديال كنا سو دوادا برنامجكينا قلنكا iyo aqoonta. barnaamijkeena qalinka iyo aqoonta waxaan cadadkiisani aan ku xuseynaa maalinta caalamiga ee loo asteeyay gabayga iyo gabyaaga, iyada oo maalintani uu marti sharaf noogu yahay abwaan Suleymaan Xasan Fure oo ku magac dheer Suleymaan Gabyo, isla mar ahaantaana maansooyinkiisa oo uu ku ururiyay buug oo ugu magac daray halka hubi uu qaar kamid ah halkan inoogu soo bandhigi doono. sidoo kale gudoomiyaha ururka dhalinta iyo nabadda Sahal Xasan Cali ayaa isaguna barnaamijkeenani inoogu marti ah, isla mar ahaantaana kamid ah barnaamijka dhalinta ila qaban qaabisa. garabkayga bidix waxaa fadhida Khadra Saban oo barnaamijka aan wada daadahayno isla markaana aan wada diyaarino, iyo sidoo kale Cabdilaahi Axmed oo isaguna kamid ah bahda barnaamijka qalinka iyo aqoonta, isla mar ahaantaana ah shaqaalaha golaha raadiyoga ee telefishinka Jamhuuriyadda Djibouti. waa tahay barnaamijkeeni baan guda galaynaa. kelmadda u horeysa siino abwaan Suleymaan, sideed u aragtaa in maalin loo asteeyo gabayga iyo gabyaaga? innagase waa caalamka ahaan kaalintee ayuu gabaygu ku leeyahay bulshadeena? بسم الله الرحمن الرحيم. إن مالنتن عالم قالوا أقصي قبيجا يا ومالن انترناسيونال، وأنا كنا هذان هاي أبوانو نسود وين إنه قبيجو وحكوية اللي وقت جينو هذا التاريخ أهم كل كان راح على بوشدينا. دينا عكسوا كجوابي هذا نقطة وانو هذا نقطة الدرجلين هذا نقطة تبع الدرجلين ذاتك هقول وقت جات هلا. ayaa gabayaaga ayaa ka ahaana hormuudba bulshadu. gabayga qofka gabayaaga ayay sida dunida kaleba ay gabayaagooga ay wax uga sugaan ay bulshadeena gabayaaga waxa uu yiri waxa in kasta ay jireen haddana dad baa kala qaad jiray oo farin gabayga ka soo gabaygiina bad wax laga arko iyo bad dadkii dhiiri geliyo iyo bad buwaaniyo intaba waxa هذا الدنيا ayaan loo aseeyo waxaan soo dhaweynaa. way tahay Khadra ayaan maxaa ku dhahay markan. Khadra, dhaqankeena halkee ayay ka taagneed? halkuu ka taagnaa raahdo gabaygaasi waxa uu ahaa ka fariin la isugu diro sida warfaafinta oo kale. wixii jiraba dhiilo iyo dib wixii jiraba kala isku gudbay ayuu ahaa ka in ay dadku isku colaada ku kiciyaan ayuu ahaa ka nabadda lagu soo hooyana uu ahaa. waxa kale jirto wuxuu ahaa ka warami jiray taariikhdii kaga gabi jiray dadkuna marka ay xafidi jireen garan jireen waqtigii joogay wixii jiray oo way marka qaarkood markasta wuxuu ka jiray waqtiga taagan. markuu qofka gabaygaas wax xafido waqtiga wuxuu ahaa kale taariikh. marna waa kan warka la isku gudbinayay hebalku jooga markuu ka waramayo gabay ahaan ku gudbinayo ku kala sii qaadayo oo garanay markaa dhulkii abaar inuu yahay, colaadii ka jirto, nabad inuu yahay, barwaaqadii wixii markaa jiray iyo wixii lagu noolaa. laba qof oo qardoofay oo kale way isku gabi jireen oo isku caayid isku tirin jireen oo dadkuna way xafidi jireen. hebel bariga u sayray saab kale yiri oo wax la xafidi jiray qayb weyn ka qaadanayay afkeena hirgelintiisa. waxa kale oo jirtay inuu hal haysoo kale ku noqonayay oo gabaygaasi wax uu ka hadlayo oo kale marka ay kugu dhacdo aad gabaygi soo qaadanaysa ama hebel bariga saabilo kale la oran jiray oo lagu gabi jiray. markuu qofku waduu abaal qofka ka sugay uu gudi waayo wuxuu tirin jiray gabay nacantii abaalkii uu ku lahayn ninkaas gudino halkii uu joojiyay aan ahayn halkii ku haboonayd. gabay marka kaalin aad u weyn kaga jiray wuxuuna ahaa maansada boqorkeeda raggaan iska lahaa. inkastoo inta dambe la arko dumar isku day gabyaan alaysna waxa uu lahaa hooyaale ayuu furaheedu ahaa oo markas lagu soo qaadan jiray. waxa kale uu leeyahay gabaygu araartaasi oo qofku ku soo jeedinayo hordhaca ugu sameyn jiray gabayga si dadkii u soo wada jeediyo ama isagoo doonaa isku amaano ama meel kale gabaya kale ku soo hal qabsadee araar ka horeysa ayuu gabaygu lahaa. awaankuna waa qayb weyn ayuu ka qaataa oo inkastoo abwaanintu aad badan yihiin oo curyo oo dhan ba iminka abwaan noqon karayo, laakiin gabayada gabayaayadu maanta dee Suleymaan baa nagala jooga isaga dee qaybtiisa inooga faalan doona. way tahay qadar waxaan imanaynaa maalintan aan xusayno taariikhdeeda ee 21 Maars
gabayga iyo gabyaaga muumin uuna weydiiyo xilliga ay soo bilaamatay maalintaas. maalintan caalamiga ee maarataanay gabayga iyo gabayaaga waxaa loo asqiyey 21kii maars loo asteeyey 1999kii kolkaa waxaa eegta UNESCO waa lafafka sii dabargo-ayoo kale iyo maarataan horumarkooda iyo ka shaqeeyaan cilmi baaris ku sameeyaan kolkaa waxay garteen inay ka dhigaan 21kii maars 1999kii kolkaa maxay u sameeyeen maalinta waxyaalo badan baa ku jiro muhiimad leh gabayga hanaka wuxuu noo yahay oo kale haddaan hanaku soo tirxanaano maarataanay Soomaaliga ahaan wixii u horeeyay la isku gudbinayay dadku waraaqad ma qorin maarataanay computer ma jirin laakiin waxa la isku gudbinay wax dambaalka isku gudbinay waxa gabay waxa warfaafinta ugu weyn buu ahaa kolka hanaka wuxuu noo yahay wax weyn buu noo yahay maalintaas xusitaankeedu ka soo qaad waxa lagu eegayaa ilmaha afbaratiisi hooyadii oo dhan waxay ku gudbinaysaa wax waa gabay kolka waxay noqonaysaa maalin hanaka aad noogu qiimo leh yay noqonaysaa marka la eego dhaqankeena loo eego way tahay aad baad mahadsan tahay sahal baan isagana u iman oo xilliga taariikhdaasi gabayga uun isaguna wax inooga taataa way tahay Khadra Sulaiman hal su'aal ayaan ku weydiinaya maxaa kugu dhayay maahida aad u lahayd mise saas uga joogtay markuu kugu soo dhalatay mise waad baratay gabaygan su'aal fiican weeyaan horta anigu hibo yani abwaan dad waxaa jira dad hibo iyo dad af Soomaaliga takhasus ku hela daanu baan lahaa awogii hiddo baan lahaa awogii baa gabi hooyo ayaa gabi jiro gabayaan iska lahaa المادرة وجبيان تتكبدون بهذه الجوية سكررنا هنا وضد روية قانو هلا ذي عرنتها هلا ذا وتهاي إن ما صدي هذا النوبل هو مثلا أفكو يعني لا ينقبل عبنا ما صدى سي محسمي مر الحسي أفكو أيام سمعنا هيد inkastoo meeshii ay ka suura gelin inaan ka akhriyo way tahay maanta waxaan ka bilaabay maanta suura gashay halka noogu soo bandhigto munaasabada halka afku hooyo ay sheegaysaa waxaan ka bilaabayaa gabay hadaladiisii kama hadha habkiisii afku hooyo waa hanad waana haybad iyo sharaf waa araar harooto hadal uu abwaan yiri aniguna halkiisa hooyigayga weeyaan ku habeeya noloshay marna waa hubkaygo ku heliya cadaawa afkaygii hooyo hibadaan ku faano sumad laygu helayo halalkan tirsanayee hogga lagu ridayaa ka soo hiilinayo ubadka haleelo afkala hongaasho oo loo heelinaya afkaygii hooyo habeenkii ma seexdee maasadaan habeeya sida hooygan dunidin maalmo igu hooyata ayaan hadalka maasada kugu qoray hingaadi afkaygii hooyo daada maanta kuma helin hawshoodii may garin hantidooda inaad tahay qalbigoodu muu helin hidiyo dhaqankii hoosba uma eegaan ninka tiisa aan hayn ma tukalu hagaajin afkay halganay Afrikada sideedaba ma hawlno ragi wuxuu habaysto ayaa hawl ka dhiganay horumar ay ku darta hay yeeshee ma helino haadaan inay tahay meesha hooyga ay dhigan berri hubeeni doontaa afkaygii hooyo nin habeeyey baa sharaf leh nin haliyey baa doqona ubadaaba u huray hanad qaani doonee dhalintii ninkaan u hurin ugu dhigin higaadii xilkasnimo miyay noqon miyaad xeer ka dhigataan laga xidho xisaabtii afka hooyo waa hanad nin habeeyey nin kastoo habeeyo nin kastoo hagaajaba hooyaa u macalina way tahay hooya u macalina khadray waxaan ogsoonahay in maasadu afka hooyaba iyadoo ay intaa dhan soo xajinaysay oo la sheego haddiina maansi jirin in afka uu baabi'i lahaa maasadu bal kaalintay afka ka ciyaarto guuxa oo kale oo aan badanaa markuu ninku guurdoon yahay uu guuxi jiray waxaa jirtay
ciyaarta ciyaalku ay ciyaaraan sida biito oo kale iyadoo waxay soo galaysaa suugaantii in googaaleysigii iyo hal xiraalihii sheeka caruuradkii ama sheeka xareedkii loo oran jiray ee bana alwaadku lagu sameyn jiray in marka taas intaas oo dhan waxay soo hoos imanaysaa maansadii suugaantii bay waxay imanaya googaaleysigii iyo hal xiraalihii iyo heesihii iyo hadalku haddii uu qurux badan yahay waa hadalkan ku hadlin ahaynba waxa lagu leeyahay hadalkaas uu suugaanaysan hadal yar isku dubadhacsan haddii aad sheegto iminka warka oo kale waa ku soo diray maaha warka waxa lagu karo suugaansan yahay way aad buu habaysan waa laga soo shaqeeyay marka suugaantu waxa soo oskalaya waxyaalaha soo maray tan iminka laakiin waa maansadii marka maansadan afka iyadu way soo sideysay suugaantu way soo sideysay maansooyinkan marka badankoodu ay taariikhda ka waramayaan ama ka sheegaan ama la isku gudbinayo ama labadii qofba fariin isugu farayaan oo kale way xijinaysaa waa dadkan way xafidayeen marka la xafido ta kale qofkan abwaanka noqonaya ama suugaanta imika waxay u sii liciifeen gabayadu ay badankoodu jiifta la noqdeen ama la noqday waxaan dhadhan lahayn qofku waa inuu horta dhaqanka yaqaan qofku waa inuu salka ku hayo dhaqanka waayo waxay qurux badnaanaysaa markaad deegaankiina ka sheekeynaysid gabar markaad arawanaysid xayawaankii kii ugu qurux badnaa lagu ammaanayo indha deerley oo kale sunnayaal biciidley dabarka sabar guley daa'uuska mogtid xayawaanka kuwa ugu quruxda badan le mogtid ayaa lagu ammaanaa lagu amaanaya xooliyo saa u foofo caani saa looga lisayo barwaaqadiyo biyo xareed halkan jiifaano ciyaalkii halkan ku ciyaarayaan oo kale oo heladii la tumayo la ciyaar gudayo anya dhulkooda doog yahay oo nimcadii caani marka laga dhergo la daadinayo ya oo xoolihooda qurux badan waxaasoo kale lagu amaanaya marka waa inuu qofkan gabayga usoo diyaargoobay amba inuu tiriyo maanso usoo diyaargoobay waa inuu dhaqankiina salka ku hayo waxay yeelanaysaa dhadhan aad macaan waxayna si usoo xejin jirtay ay iminkana u xejinaysaa way kelmado badan oo baxayaa jira way tahay magaaladii ilmihii ku dhashay weligiiba mu arkin xayawaankan laga sheekeyn hadduu doono ama afkale ku yaqaanaaba geedahan quruxda badan lees qabsaday iyo doogan iyo kan kale midba noocaa kii geedaha ku marmayey noocyadii ay lahaayeen markay xareedu jiifto rihii baa ka ceeyay ku heesaha marka gabdhaha la amaanayo kale ama meel qurux badan raayba ma garanayaanba way tahay marka waxyaabo badan baa meeshii ka baxaya kelmadaha soo miran si uu qofkan ugu soo nooleeyo afkii oo weli loo soo sido waa dhaqankii yaqaan way tahay kan ilmahana wuxuu wax kasta lagu barayay ama heeso baad ama gaaleyso baad ama oo dhulka lagu kala gabay u baahid waxa dhulka lagu kala barayay gabaygan marka uu weynaado horta uu qaadi karayo oo gabaygu miisaan buu lahaa laakiin marka la soo bariyay qurba heer inta uu leeyahay ayuu sida iskoolka kale levelka uu joogo kale loogu sameyn jiray ay marba halku joogo marka dhabarka lagu soo hooyadu heesaysay markuu arday ku ciyaarayo sheeka aruuradkii iyo googaalisiga loo sameeyay hal xiraali baa ku xigay gabayaagi baa ku xigay ya waxa jirtay hadallo kale oo sarbeeba afkiisa aad boqoniya wax marka qofku suugaanta ka yaqaan aftaan ka aftaansan marka qofka saa lagu soo barbariyo isagoo wuxuu u soo gudbinayaa ilmihiisi jilbajir isagoo oon qornayn waa kayna soo gaaray maanta uu qoran yahayna waxa lagu sii baxaya كلمة شيء بحثات مركا وسيدستي للسنة كبحث وأرن مهم وكذا واجسي مركا وحين نقص بيري أحمد ظاهر وكما قاعدير داوس أحمد وانين دلنير وحين كمل هاي دلنيرتا عصب كوسا بيريسا حاجة إرينتا أنباء مع سمينتا مناسبة دنا ونقل قيب قادنا يا وجهرين هودي أحمد بل إسجنا waxyaabihii ku dhaliyay inuu noqdo hal abuur waxa la yiri fanku waa hidaraac ama hawlo keentay ama hiba keentay ama hiba keentay ay kolka waxaan anu hidoonay hawlonayga makeen laakiin waa wax igu barmay anigu waa tahay waa xaqii hibadii way tahay hadaba goormaad iska dareentay inaad wax urani karto والله وحنا الله يرانته يقول بهذا الله يرانته الله حلقان سكول كديني أدو لبده كنا شنة طنكي عادي كصباح عادي كصباح حلقة أبو النادي أهري ظهر دكتور منسوين كوي هاين أما تسلاد هاي مانتا أبو النادي ويقع قبتين
meeshii u horeysay aan ka bilaabay waxay ahayd gobolka Xal Sabix anigoo xagga ku sugan maalmaha kamida anigu waxaan kamid ahaa atiladada wadankeena anagoo turmooga sameeyna ayaan maalin lug baa xanuunsatay kadib meel baan ku hadhay asxaabtayda way iga socdeen laakiin waxay soo noqdeen nin saaxiibkaya kadib telefoonkayga ayaan haysay qaybtii mesaajka ayaan galay xilliga waxaa wadankeena soo geliyay maalinkii xornimada gobonimada kadib qaybtii mesaajka ayaan maalintii la xusay iyo gaadhay bishii lixaad bay kadib science-kii watay waxaan qoray ama waxaan sameeyay ayaan hees ku sameeyay wadani kadib xaggii waan ku bilaabay Djibouti waan soo raacay wax abwaankii u horeysay way mid wuxuu ahaa Maxamed Muumin Ababe ninkii iga caawiyay inaan heesada aan soo saaro kadib anu xagga waan ka bilaabay fankayga way tahay haddaba munaasabadani maanta maxaad ugu tala gashay oo nagala qayb qaadan doontaa wallahi waxaan ugu tala galay imika debatan ay soo xagga abwaanimada ama fanka hees waa sameysay dad baa heestaa sameysay beddelay kolka anna taa ayaan ka diyaariyay maaso ama gabay oo kaga hadli doontaa kaga hadlaya si aan ugu jawaabo way tahay aad baad mahadsan tahay waan isku soo noqon doonaa markan qadar waxaan imanaynaa in xagga afka hawiyo iyo deemaasada waxa jiri jiray hoobaydii inta aanan u gudagelin kaalintii hooyada bal muumin wadiyo horta maaso dhalinteena maanta xagee ka taagan horta imika dhalintan way han weeyeen inay wax arkaan waayo markuu qofku haw tirinay abwaan imika soo joogso wax badan baa la weydiiyay su'aalo badan baa la weydiiyay ciyalku gargarada ka soo luuran maxaa saaw tiri maxaa gabaga kala tirisay laakiin waxay leeyihiin meesha ka heliyeen waxa imika meel kasta waxa hoy baa loogu yimaadaa oo tababar laga qaataa kolka imika baabuurka marka la socoto kale abwaan aragno kale waan weydiinaa war maasada saaba ku tiri maxaa saa uga jeeday maxaa kolka qofkii ugu haweeyay wixii inuu barto laakiin wuxuu leeyahay meeshii uu ka heliyay sursigii wixii ka heliyay baahidii uu ka heliyay yaa taala ta kale waxa ku socda dagaal kala ku socda imika waxa weyn tilsoonkii wuxuu wada maarataanay dagaal isu wada heesii kale maarataanay ajnabigi dagaal weyn baa wadaan maarataanay boodadii iyo kuna maarataanay lagu qoray afafa kale waxa nagu wadaan dagaal kale cusub nagu wadaan kolka ina tani maxaa loo waayay in loo helo meel maarataanay dhalinyarta hay ku soo hoobtaan oo kale way ku soo hirtaan ay ka heli karaan maarataanay muyaarada iska daawadan noqon karaan way tahay waa hadal meesha yaal waa halkiiba dhalinyartu laayiin ay ugu imani lahaayeen maasada iyo gaar ahaan maasada afkooga hooyo waa tahay khadra marka waxaan imanaynaa Axmed Daahir Axmed hay maasada ugu tala gashay waxa tiri abwaanada ayaa kula hadlaya waas bilay qaystaan miya abwaanada iyo adoorag heesaha bedela fanaanita oo heesiga gaar ahaan marka hees la sameeyo abwaan waxa sameeya fanaanku ku qaadaa waaya kolka abwaan baa beddelaya heesiga ka dhigayaa sida adoo ugu tala gashay ma si kale way tahay taabada anaa ka sameeyay joog hay haddaad inoo akhrido maasada ugu tala gashay kolka seetan moon bilaabaya fankiini maamuuskiyo maharaagiyo xikmadda murtida ku salaysnaa fankiini mahmahdiyo micnihiyo aqoontiyo garashada ku miisaanaa fankiini macaanaaye geeraarkiyo maansooyinkiyo heesuhu ka muuqdeen miyay arxaan laawayaal maankoodu gaaban yahay inta ay minjo xaabsheen macaankii uu lahaa maalin keliya kaga qaadeen sidii maqasha aadhigo dacaawo u muuqato mooska ka boodo maanta lagu miisaalaa maskaxdayda diido maroon ka dhalisay xaaladan margidee mawlow allahayow adaan ku muciinsanee maslaxad fiicanoo maamuuskiyo ku celi suugaantii macaanayd maantaba nasiib way tahay aad maadsantahay waa tahay khadra أحمد أصلا عدل ما صنتهاي
waxaan tahay abooyar oo soo kacaya alxamdulilah taa dhalin badan ayaa aan muumiga jawaabaytiisii ayaa jira oo aan qaarkood badan kusoo marti qaadnay wayna u hanweyn yihiin oo saas sheegtay cabdilaahi oo aad wadkeenu ugu hanweyn yihiin wayna u baahan yihiin meel ay ka qaataan dhaqankii ka bartaan waayo maalin waxaan arkay inaan waxaa ahayd guri duriyaan hayaa oo waxaan baraaba wuri dhaqankii ama sheekooyin ha haato ama waxyaabihii samayn jireen ama farshaxankooyi ama wixii ciyaalku waxay arkaan marka baadi la matalayo oo qofkii baadi laga soo qaadayo waxaan waxbaba kala garanaynba inta markastii lagu matala rabaa inay arkayeen nacamti waxay la yaabeen buu kuleeyahay waxay yidhaahdeen sidee nacamti ma fikiri jireen buu kuleeyahay oo waxba garanaya waxba sala samaynayeen waayo waxay ka haystaan horta ay ka haystaan bahay in uu qofka baadaha ama miyigeeni ama dadkeeni hore ay waxba ahayn baab ahaayeen marka waxay u baahan yihiin saa sheegay rug loo sameeyo oo ku soo hirtaan wayna jiraan wallahi wiilal oo gabdho aan iminka ku soo biiray oo soo kacayo waan ku hambalyeynaa oo ku soo dhiiraday in ay maansooyin tiriyaan waxaan ku talin lahaa in ay bartaan dhaqanka xoog u bartaan si ay u caawiyo dhaqanka oo uga caawiyo isaguna adigu u baasan yahay axmed yare oo ku jira banqooyinka laakiin dhaliisha aad soo jeedisay awaamintooda ma qabaane intii qabtaan baa qaadanaysa xaraale hadal intii kale aan qabin ma khusaysaba way tahay cabdilaahi waxaan ku darayay hibab waxa weeyaan iminka abwaanka gabay buu soo saaray uu qoray dhibaataa ka gaadhay intaa habeen buu kusoo jeeday waxa weeyaan wuxuu kusoo saaray buug buu kusoo saaray kolkaa wuxuu doonayaa in haddana ilmihii iminka wuxuu doonayaa in haddana loo qabto oo dhegeyso wuxuu odhanaya bal waxa inta leegma wala akhrin karee bal dhegeysigu maqashii bal duubo bal dhegeysigu maqashii markii la duubay haddana wuxuu leeyahay haddana balaaran yahay ma soo ururiso iyo koobakeed waxa nagu dhacay xamni jilicsan oo maaratan qofkii imika qofkii dib yaraysi oo samir la'aan oo sabro qofku waxa weeyaan siduu wax u gaaro waa inuu dadaal badan geliyo imika raggan waxay noo soo gudbiyeen intaa baashadooda intaa buug soo gudbiyay oo maasa kolka haddana waxaan doonaynaa in haddana noo jilciyo imika oo dibna loogu mariyo kolka anaku inaan wixii soo saarnaa yaa meesha noo taala dhalinyarteen imika marka waxay odhanayaan imika bal gabayga igu maqashii codhaan anaka dhibaatan haysato dawladda yahay akhrintiisuna akhrista waa adag tahay xoog boodagto marka laba baashood saa akhridid waxa oranaysa war adag kaabal maqashii warna waa tahay kolka waa bal hadana dib yarayada la sii dhib yaray waa tahay gabagabadii barnaamijkeena ayaan usoo dhawaaneynaa maasadii u dambeysay ee kaga hadlaysay dhoofka kolka maasadan dhayag baa lagaa waxay la hadlaysaa aduu dhalinyaradan dhoofka jecel gelin baan afkayga ka dhabay gabay ka dheereeyey haddii aan dhex joogsado dhabbaan wax u tilmaamaaye gabaygaan dhuraayo murtidan soo dhudhuuminayo nin dhegaysta waana uu ka dhagan kuna dhaqmayaaye dhibaatadan haysa haddaan dhinac ka soo ego nin dhaqaaq shaqaysanin dad yahow dharagna doonaya inuu dheeliyaa way dhacdaa dhibi haleeshaaye dalkan dhiimay dahab buuxe ee dhaaye lagu eegin iyo dhoofkan loo dhoohan yahay yaa la dhagagay nin kastiba dhulkiisuu qotaadhuuni ka cunaaye dhexda buuraha laga helaa dhayman lacageede inkastay dhibaatana tahayna lagu dhaqaaqaaye dhirta geedaheeniyo dadyaw xamagta dhiicaanku inay bow xanuun noo dheedaa way dhacaysaaye fudhaal dhuuni lagu cunay xeedhi dhayda lagu fuo dhirtii laga samayn jiray dadyaw dhidika weeyaane dhaqankii inaa lubaynaba dhab u arkayaaye dalkan dhiimi dahab buuxe ee dhaaye lagu eegin iyo dhoofkan loo dhoohan yahay yaa la dhagagay dhammaanteed adduunyada markaan dhaaye ku ilaashay nin kastiba dhulkiisuu dhaqaa uu dhisayaa dhammaan reer jabuuti maxaa qalbiga dhooban iga saaray dhulaa lahayn baa rabtaan inaan u dhooftaana ciidaa ku dhalataa habboon oo dhaxal ku reebnaaye dhammaanteen dhaxalna waan diidnay dhammaan reer jabuuti doonaan wada dhex yeeshnay ninba dhaxal hadduu eeginuu dhinaca jebiyo baddu inay dhammaantiin leeqdaa way dhacaysaaye dalkan dhiimi dahab buuxe ee dhaaye lagu eegin iyo dhoofkan loo dhoohan yahay yaa la dhagay way tahay kolley ahmiyadda waxay ka mid tahay un de maasada
in wixii waana tusaale uu abwaanku ku bixiyo waa tahay khadar gabagabadaan soo gaarnay maxaad kusoo xidhi lahayd barnaamij waxaan kusoo lahaa erayo ku jiray ayaa dhaygag oo kale ayuu ugu magac daray dhaygag waa la yaabitaanka waa la dhaygagay dhoohani baa ku jirtay dhoohanaantuna waa qof nacamtu waxa muusiinayo ama dhagalayo kale ka dhoohay magdoohanta waa lagu leeyahay marka wax fahmi weydo kala fahmanaanta marka dhulkooda waxa dheemanayo wax yaala dahab iyo wax kasta yaala ama manaafacaadka dhulkeena yaala hadii dhulka lagu forso xitaa beeraha aan qodan karayno wax kasta badeena kalluun iyo luul baa buuxa oo la soo bixi karaan cid ku sheeganaynin ayuu tusayaa ku leeyahay ka dhoohan yihiin oo ka dhagalaan yihiin marka wala dhagagay aan soo soo gabagabin lahaa ku baraarugo leeyahay waxaan horta abwaanimadu waxa weeyaan qof bulshada u adeega kolba meeshii wax ka arko oo dhaliil ka arko muujiyo iyo de wixii qofkii wax fiican wadana oo de taageerada taa waxaan ka sheegi lahaa in tan buugan maahane hawlo kale oo badan aan gacanta ku hayo sida diiwaanka heesaha ayaa sameeyay 200 diiwaan inaan buug ka saarno dhalinteena iminka shantaano iyo heesaha ay buugiyo soo sameeyeen bato ka jeclaado si xeerana de u soo maraya inuu heesta kala bixi karo de iska tuman karo diiwaanidil waa inaan gaarsiinaan doonana rakal inaan kala shaqeeyo afada cusub oo dadku heeso haday meel ku yaalin dhalintu dabayso adeegsan karaysaa way kala baxayaan ka rabaan iyo fiilmi iyo wax ka hawlo dhan way tahay kulli barnaamijyo kale ayaan oo barnaamijkeena mar kale ku kulano ayaan rajeynayaa waa tahay daawadayaal waxaan mahadcelinayaa abwaan Suleymaan oo ku magac dheer gabiyo iyada oo barnaamijkeena si gaar ah aan ugu xuseynay maalinta gabayga iyo gabiyaaga waxaanan hadduu eebeedmo toddobaadka dambe iyada oo maalintani aan ku xasuusanay sidoo kale abwaan Cumar Daahir Cabdi oo ku magac dheeraa Cumar Kuul oo eebi aan uga baryayno inuu naxariistiisii janno ka waraabiyo balse cadadka xiga ee barnaamijkeena qalinka iyo aqoonta ayaa waxaan ku soo qaadan doonaa hadduu eebeedmo taariikhdii abwaanka oo barnaamij gaar ah oo kamid ah cadadyada barnaamijkeena qalinka iyo aqoonta aan ugu hibeynayna abwaankaasi oo ahaa abwaan weyn oo reer Djibouti ah qaybo kala duwan suugaantiisu ay u kala baxaysay oo ballaaran weyna suugaanta ku soo biiriyay toddobaadka dambe ayaa aan ku soo qaadanayna oo la soconi doontaan anoo mahadcelinayda ka qayb qaatayaashii barnaamijka marti sharafta koobaad abwaan Suleymaan Xasan Fure oo gabiyaha ku magac dheer iyo sidoo kale abwaanka da'da yar ee Axmed Daahir oo daa'us ku magac dheer Cabdilaahi Axmed ayaan isna mahadcelinayaa oo bahda barnaamijka kamid ah iyo khadra saban oo barnaamijkeena si joogto ah la daadahaysa sidoo kale aan mahadcelinay farsamo yaqaanada codadka iyo sawirada isu keen gudbinayay tan intaan dib u kulmi doono cadadka xigay barnaamijkeena waxaan idinku dhaafeynaa nabadgelyo iyo amaano Allah salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh